inta maanta inoo hadhay ilaa berri haddii alla yidhaahdo waxaan mar dhow idinku yeedhi waxaan isqaybin doonaa mar dhow 8 kooxood qof walba dowladda federaalka Soomaaliya waxaa ka go'an in ay howlgasho sidii lagu gaari lahaa hannaan dimuqraadi ah oo loo wada dhan yahay iyo sidii ay si daahfurnaan ah awood la isugu wareejin lahaa sanadka 2016 tilmaamahan habraaca ama ma ahan mid soo wada koobaya ama qeexaya wixii habab doorasho iyo fikrada ah ee ilaa hadda la soo gudbiyay laakiinse wuxuu soo bandhigayaa 4 nooc oo kala duwan oo lagu yeeleeli karo doorashada soo socota waa daalan yahay waa iska fasaxaynaa raallina ahaada inaan fasaxnana raalli ka noqdo runtii waxaan ku faraxsanahay maanta inaan hortiina soo istaago anigoo muujinaya codka dhalinyarada reer Jubbaland kuna faraxsan inaan qayb ka noqono nagulana taxgeliyo shirkan wada tashiga ay qaran ee hiigsiga 2016 annagu waxaanu ku salaysannahay oon raalli ka nahay Soomaalidu inay deegaanka degmooyinka wax ku qaybsato dadka walaalaha ah dhammaan inaan la dulmin inaanina ninka gardaraanin shareecada islaamka ku dhaqankana inaanu ayada naftigeeda wax walba oo badan aanu ku salayno taa hadday tahay oo degmada ka soo baxdo dadka daris wanaag dadka wada degan baa nin waliba qancahaya nin waliba markuu qanco intii loo garto ilaahayna u garto ayaa hawsha loo xil saaraya mas'uuliyaduna ma aha midaan anagu samayno waa mid xag rabbi ka timid midda xagga rabbi ka timidna waxaa weeye binu aadanku waa inuu isu quuraa laakiin waxaan idin sheegi meel kasta oo la joogo mucaarad bay leedahay halkan maanta waxaan iskugu imaanay hiigsiga 16 sidii lagu gaari lahaa barnaamij shalay maanta wuu noo socday aad baa loogu guuleystay hawshana hadda way noo socotaan ugu kala faraha kula jirnaa saddex arrimood baa laga hadlayaa laakiin aniga ra'yigayga maanta wuxuu u badan yahay in loo qaato barnaamijka meesha ka jira loo qaato deegaan ahaan